السلام عليكم daawade ku soo dhawow xalqadii 13aad ee barnaamijka fariimaha quraanka barnaamijkaas oo maalin kasta oo Ramadaan ah idinka yimaada barta YouTube-ka uu ku leeyahay kanaalka Qumane iyo sidoo kale ciwaanka Facebook ee Sakariya Cabdullah Harun fariinteena maanta waxa weeye aayadaha 15aad iyo 16aad ee suurada Al-Furqaan Rabbi waxa uu leeyahay قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا waxaad dhahdaa mataasaa khayroon mise jannada waaridda ee ah midii loo yaboohay kuwa dhowrsada waxaanay u ahaatay kuwaas dhowrsada abaalmarin iyo noqosho waxaanay ka helayaan dhexdeeda waxay doonaan waanay ku waarayaan arrintaasina waa yaboo uu alla isi saaray oo sugan shalay waxaaynu soo qaadanay fariintii ahayd in ay naartu u gurxamayso oo u gooxayso kuwa edebsan waayay ee adoonnimada iyo intooda garan waayay aayadahan maantana waxa ay ka hadlayaan jannadii lagu nasanayay oo leeyihiin bal naarta gurxamaysa waxa aad barbar dhigtaan jannada lagu waarayo wax kasta oo uu qofku doonana ka helayo teebaa khayroon waa aynu aragnaa oo way caddahay in ay kaaf iyo kala dheer yihiin inta ay isu jiraan waxa caado ah in Allah subhanahu wa ta'ala marka uu naarta ka hadlaba uu ku xigsiyo jannada rabbi barwaaqada haynugu arsaaqo guud marka xalqadeena maanta waxa weeye jannada waxa yaala wax kasta oo uu adoonku fisho waa xarun barwaaqo iyo badhaadhe waxayse u baahan tahay amal iyo shaqo dadaal iyo rafaad daawade waa inoo bari iyo fariin kale oo ka mid ah fariimaha qotada dheer ee quraanka insha Allah السلام عليكم